Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaantiin wayda wada salaamaya akhyaarta sharafta leh ee janalkan ku xidhan iyo ka hadda soo booqdayba. Insha Allahu tacaala maanta barnaamijkeena waxaynu kaga hadli doonaa 3 qiso oo run ahaantii ay ku jiraan talooyin iyo cibrooyin aan la soo koobi karin. Haddaba si aad uga faa'iidaysato talooyinka waa inaad la sii socotaa barnaamijka maanta. Okay. intaynan u gudagelin barnaamijkeena maanta waxaan kaa codsanayaa inaad janalka aad ku samayso haddaba haddaynu barnaamijkeena si toos ah u gudagalno barnaamijkeena maanta wuxuu khuseeyaa Juxa iyo wiilkiisa maalmaha ka mid ah ayay u safreen tuulo waxayna sii kaxaysteen dameerkoodii kadib Juxa iyo inankiisa iyagoo safraya ayaa wiilkii yaraa ayuu fuushsiiyey dameerkii isagiina dhulkii ayuu socday waxa dhagihiisii ku soo dhacay xantii dadka iyagoo leh war waa ilmaha dhalinyarada ee aad fuushisay dameerka adig iyo shiikhana aad fuushay aanad fuulin dameerkii ee aad dhulkii soconayso haddaba Juxa markuu ka raysan waayay hadalkii dadka wuxuu fuulay dameerkii hadalkoodii awgood ilmihiina dhulka ayuu socodsiiyey haddana idin lagama ammaan helo dade waxa dhagihiisii ku soo dhacay hadalkii dadka iyagoo leh war waa odiga weyn ee fuulay dameerka inankii yaraa ee dhuubnaana dhulka socodsiinaya haddana labadoodiba way fuuleen waxaana is yidhaahdeen bal aad ka ammaan heshaan hadalka dadka balse sidaynu ognahay dadku sax iyo khaladba dadka kuma daayaane haddana xantii dadka ayaa dhagoodii ku soo dhacday iyagoo leh war miyaanay naxariis lahayn xayawaanka mayeedhaanka waxay labada ku wada fuuleen way ka degeen labadiiba haddana ilaan dadka lagama reystee xantii dadka ayaa dhagahoodii ku soo dhacday dadkii iyagoo leh war raggan waaxay macaqli iyagiina dhulkii ayay soconayaan may dameerka fuulaan ilaan dameerka waa la fuulaaye iyagii markay yaabeen ayaabay dameerkii qaadeen waa maxay tolo sababtu ay dameerka u qaadeen waxay ogaadeen dadku inaanay sax iyo khaladba kaga tageen dadkiina wuxuu ku yidhi dadka kuma daysaan sax iyo khaladba waxay ku sugan yihiin Juxa markuu dadkii la yaabay ee uu la yaabay xantan iyo hadalkan kala dhamaan waayeen wuxuu yiri xikmad ah dadka kaga ammaan heli maysid sax iyo khaladba ka doonta aad ku sugnaatide haddaynu u gudagalno qisadeena labaad waxay ka dhex dhacday arday iyo macalinkoodii macalinkii iyo ardaydoodii sidii ardaydu caadada ahaydba waxay sameeyeen inay samuuradii ku qoraan naanays xun oo loogu yeeri jiray macalinku naanaystaas oo weliba ahayd mid uu macalinku aad iyo aad uga xanaaqo oo islahaayeen markuu soo galo uu ka xanaaqayaa balse macalinkii markuu soo galay wuu isdejiyey oo muu xanaaqin isagoo dhoola cadaynaya wuxuu yidhi ninka ku qoray samuurada magacaygo waxa ku taala tamaashiirtii waxayna kaga taalaa madaxa ardaygii meesha ku qoray samuurada isla markiiba ardaygii ayaa shakiyey wuxuuna baadhay madaxiisii haddaynu usii gudagalno qisadeena ugu dambaysa ahna qisada saddexaad waxay ku dhacday qisadani saxaabi ka mid ah saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam habeen ayaa wuxuu qabtay masaajidka si uu u akhristo qur'aan saxaabigii markuu bilaabay akhrintii qur'aanka wuxuu isla markiiba arkay fardihii oo diday farduhuna kamuu didayn qur'aanka ee wuxuu ka didayay daruurta oo soo dhadhawaanaysay asxaabigii uma joojin oo wuxuu qur'aankii sii akhriyay mar kale oo labaad wuuna sii watay qur'aankiisi fardihii markan wuxuu ku dhawaaday oo xoog ayuu u diday inuu goostaba xadhigii asxaabigii run ahaantii cajab ayaa ku dhacay wuu yaabay haddana umuu joojine mar saddexaad ayuu qur'aankii sii akhriyay oo arrinkaaba umuu joojin balse markan fardihii wuxuu aad iyo aad ugu dhawaaday inuu xadhigii si toos ah u goosto oo cararo daruurta oo marba mar ka dambaysa sii dhawaanaysa isagoo ka diday asxaabigii mar saddexaad waxaa leeyahay mar afaraad kumuu celin aqrintii quraanka sababtoo ah wuxuu u baqayay ilmo yar oo u dhawaa fardaha meeshuu ku xidhan yahay intuu soo goosto inuu ilmahaas ku joogsado waana sababta
uu u joojiyey aqrinta qur'aankii uu aqrinayay. markii waagi dilaacay wuxuu saxaabigii u tegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna la wadaagay arrintiisii. rasuulkiina wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam, mar kasta ood qur'aanka akhrinaysay waxaa soo dhowaanaysay oo soo daadegaysa malaa'igta. mar afraad haddii aad ku celin lahaydna toos ayay malaa'igtu dhulka u iman lahayd, waxaana loo arki lahaa sida dadka loo arko. haddaba barnaamijkeenna maanta intan ayaan ku soo idleynayaa. qisooyinkeena iyo sheekooyinkeenana intan ayay noogu eegyihiin. waxaan idinkaga tegayaa salaanta islaamka. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hakana ilaawin janalka inaad ku samayso كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة.